wasiirka horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in qofkii ugu horeeyay uu geeriyooday xanuunka coronavirus waxa kale oo sheegay in 3 ruux oo kamid yahay qofkaasi uu geeriyooday xanuunka laga helay taasi oo tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus gudaha Soomaaliland ay yihiin 9 ruux waxa jiray 36 case oo u dambeeyay oo aanu dirnay dhiigoodii shalay baa na soo gaadhay xogtaasi markaa waxa ka soo baxay qodobo 4 oo aan u baahanahay dadka muwaadiniintu inay aad iyo aad ay u fahmaan waa qodobka koowaad dadka laga qaaday magaalada Hargeysa gudaheega sambalku ama muunada dhiiga ahi waxay haayeen 20 qof hal qof oo kamid ah ayaa xanuunka la xaqiijiyay qofkaasina ilaahay u naxariistay waa marxuumkii ku dhintay magaalada Boorama marka taasi waxay sheegaysaa in xanuunku nagu jiro oo markaanu dib baaritaan galnay qofkaasi maaha qof ka yimid qurbaha maaha qof safar galay waa qof dalka gudihiisa uu joogay marka arintaasi waa arin cusub oo u baahan taxadirkeeda iyo inaynu u qaadano inay tahay xanuunka jiritaankiisu yahay xaqiiqo una baahan inaynu fahamno in ay tahay in taxadirkii hore aynu ku jiray aynu laablaabno muwaadiniintuna ay muxuu talaabooyinkii lagula talinayay wasaaradda caafimaadku iyo tilmaamihii iyo awaamirtii ka soo baxaysay gudida qaranba ay sideeda u qaataan xoojiyaan lana joogteeyo waxa kale oo ku jiray 3 qof oo iyaga laga ahaa magaalada Burco dhamaantood waxay ahaayeen negative caafimaad qabaan xanuunka laga helin waxa jiray hal qof oo isna ka yimid magaalada Berbera oo isna Hargeysa ku sugan hadda oo wasaaradda caafimaadku gacanta ku hayso qofka markii baaritaan loo sameeyayna waxa la ogaanay isna xanuunka inuu qabo haddana wuxuu ku jiraa gacanta wasaaradda caafimaadka xaaladiisa caafimaadna aad bay u fiican tahay waxa kale oo jira 12 qof oo ku jira karantiinka oo aynu gacanta ku haynay oo dadkii diyaaradda Ethiopia inta la socdaya hal qof ayaa ku soo beeray oo iyagana ah positive alxamdulillah marka horeba gacanteenu ku haynay xaaladiisuna way degan tahay waxa kale oo jiray dadkii hore aan uga qaadnay aynu gacanta ku haynay inaanu dib tijaabo uga qaadnay hal qof oo isna ku jiray qoladan wali qofkaasi waxa way xanuunka u qabaa laakiin xaaladiisu way fiican tahay marka halka waxaan ku jira in maadaama dadka aynu ka qaadnay dhiigu ay ahaayeen dad magaalada Hargeysa tiro badan oo dadkii xanuunada neef mareenka u jiifay cusbitaalka guud ama cusbitaalada kale dadkii wasaaradda caafimaadka la soo hadlay ee u baahnaa in baaritaan lagu sameeyo iyo qof ka yimid magaalada Berbera oo halkan markii uu yimid xanuunka soo sheegay oo aanu karantiinimeen oo laga qaaday arintaas waxa sheegaysaa inuu xanuunku uu gudbay heer cusub oo ah inay jiri karto ama ay jirto xanuunku inuu fidayo oo uu jiro waxayaguna halkaasi fariimo iyo wacyigelin la wadaagay bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Maxamed Cabdi Xergeeye iyo Dr. Axmed Xuseen Ciise in qofku marka uu dareemo xanuunkan aanu bulshada dhexgelin ee uu gooni isku isloodgareedeedna uu la soo hadlo wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo nambarka heeganka afka la duubanaya sanka iyo afka la duubanaya ee maaska lagu xidhanaya inuu muhiim yahay wadamo badan baan markii hore ka dhaadhacsanayn laakiinse maanta waa hubaal weeye waa loo yahay wadamadii qaatay nidaamka iyo ummadii qaatay nidaamka iyo shacabkii qaatay nidaamka inuu qof waliba isilaaliyo dadka la ka ilaaliyo oo uu maaska xidho inta badan way ka badbaadeen dhibaatadiisii way ku yaray dhibaatadiisu Mukhtaar Ismaaciil Ali telefishinka Universal Hargeysa